madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi oo ciisaynaya diinta islaamka ee suuban dhiiri gelinayana ubaxa ama labeenta wadankani leeyahay ee xaafidul quraanka ayuu sanadkii afraad u qabtay tartan quraanka kariimka oo loogu talagalay dhalinyarada dadaalka ballaaran sameeyay ee xifdiyay quraanka kariimka kaasoo qasriga madaxtooyada Soomaaliland ku gudoonsiyay afartii arday ee kaalmaha hore ka galay tartankaasi abaalmarino kala duwan gudoonsiyay taasoo ay ugu weyneed gaadhin tartankan xifdiga quraanka kariimka ee bisha barakeysan Ramadaan oo in muddo ka socday masaajidka Calimataan ee bartamaha magaalada Hargeysa looguna magac daray abaalmarinta tartanka quraanka kariimka ee madaxweynaha Soomaaliland isla markaana uu maalgeliyay madaxweynuhu ayaa ujeedada uu ka leeyahay ay tahay in la qiimeeyo lana quweeyo kitaabka le oo hadalkii Ilaahay daayirtana lagu taageero in ay bartaan oo ay xafidaan quraanka kariimka sina baraan bulshada qaybaheeda kala duwan munaasabadan lagu abaalmarinayo ardaydan oo lagu qabtay madaxtooyada Soomaaliland ayaa waxa kala qayb galay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Silaanyi xubno ka tirsan golaha wasiirada culimadii garsoorka ka ahayd muddadii uu tartankaasi socday 18 wiil ee ka qayb galay tartankaasi oo ka kala socday gobolada kala duwan ee dalka iyo marti sharaf kale oo lagu casuumay tartankaasi ayaa waxa kaalinta koobaad galay Mubaarak Khaliif Yuusuf oo ka socday gobolka Maroodijeah kaalinta labaadna waxa galay Ibrahim Maxamuud Axmed oo isaguna ka socday gobolka Sanaaga kaalinta saddexaadna waxa galay Xanafi Bashiir Maxamed oo ka socday gobolka Maroodijeah kaalinta afraadna waxa galay Sakariya Cali Maxamed oo ka socday gobolka Sool Maxamed Axmed Cabdullaahi Shabeel oo maamulaha idaacadda quraanka kariimka oo halkaasi ka hadlay ayaa hadaladiisu waxa kamid ahaa farxadda darteed waxaan jecelahay maadaama mas'uulka idaacadda quraanka ahay inaan hortaada kaga mahadnaqo furitaanka idaacadda quraanka ee dalka baalka dahabka ka gashay iyo tartankan maadaama labadaniba idaacadda quraanka iyo tartankani ay yihiin waxaan lagaaga horeyn adiga Sheekh Maxamed Aadan Maxamed imaamka iyo khadibka masaajidka Calimataan ee bartamaha magaalada Hargeysa ahaana gudoomiye gudida culimada ee tartankaasi waday ayaa sharaxay muhiimadda uu tartamada noocan oo kala ay dalka u leeyihiin gaar ahaan dhalinyarada waxaan uga mahad celiyay madaxweynaha Soomaaliland tartanka quraanka kariimka ee dawladdu ay qabato ee xafladiisii madaxtooyada aynu fadhino ee wasaaradda diinta iyo awqaafta soo diyaarisay dawladda Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi ayaa bilowday loogama horeyn sanadkii afraadna way maraysaa waa waxyaabaha lagu xasuusan doono dawladdan insha Allah madaxii u sareeyay dalka iyo quraankii dalka iyo raxmadii marka ay sarkaan sharaf weyn bay dalka u tahay dadkana u tahay madaxweyne ardaydan aan kugu keenay waxaan kugu keenay inaad dhiiri geliso waxaan kugu keenay in ay dareemaan in diinta dalkan laga ciiseenayo laga sharfayo waxaan ku sheegayaa 4 sanadood ee ardaydu ay runtii tartanka aan u qaadaynay sanadba sanadka ka dambeysay uu ka sii xoogaysanaya waanu ka sii cuslaanaya wasiirka wasaaradda madaxtooyada Soomaaliland mudane Maxamuud Xaashi Cabdi oo isna madashaasi ka hadlay ayaa si adag uga hadlay ujeedada uu madaxweynuhu ka leeyahay qabashada tartamada noocan oo kale waxaanu hoosta ka xariiqay inay tahay waajib xukuumadda saaran waxa weeye inaynu diinteena islaamka sharafta badan gaar ahaan quraankeena oo ah hadalkii Ilaahay aanu dhiiri gelino siyaasadda madaxweynuhu ka leeyahay waxa weeye inuu quraanka dhiiri geliyo barashadiisa ku dhaqanka diinta madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland iyo maamulkiisu kama mas'uul aha oo kaliya adkeynta amniga ilaalinta haybadda qaranka dayactirka wadooyinka iyo samaynta wadooyin cusub horumarinta waxbarashada iyo caafimaadka waxyaalaha mas'uuliyadka aasaaska nolosha u ah kaliya kama mas'uul aha wuxuu kaloo ka mas'uul yahay oo uu garwaaqsan yahay isaga iyo maamulkiisu inay mas'uul ka yihiin ilaalinta diinta islaamka waxa ay aaminsannahay inaanu mas'uul ka nahay dhiirigelinta ku dhaqanka diinta islaamka kor u qaadidda xifdiga quraanka iyadoo taa la gudanayo ayuu madaxweynuhu arrintan jideeyay madaxweynaha qaranka Soomaaliland mudane Axmed Maxamed Maxamuud Silaanyi oo halkaasi ka hadlay ayaa waxa uu sheegay inay muhiim tahay in la dhiiri geliyo
ku tartanka quraanka kariimka iyo diinta islaamka waxaanu ilaahay ka bariyay madaxweynuhu in bishan barakeysan Ramadaan aynu ku guda jirno oo khayrkeeda ina siiyo farxad aad iyo aad u weyn baa tahay inaan xafladda ka soo qayb galo insha Allah ta'ala ilaa waxaan ka bariyaa inuu ilaahay nagu anfaco quraanka kariimka ah ilaa waxaan ka bariyaa inuu caafimaad iyo nabadqab iyo nabadgelyo iyo wadajir iyo wanaag ina siiyo ayaan ilaahay uga mahadnaqaynaa xifdiga quraanka waa wax weyn oo muhiim weeye wax aad iyo aad qiimo weyn u leh dadkeena iyo dhalinyaradeena iyo shacbigeena waynu ku dhiirigelinaynaa intii awoodeena dawladdu waxay kala hadhaysay awoodeeda ma jirto waa dawlad muslimiin nahay dawlad qaran muslimiin nahay inaynu u shaqeyno oo u hawlgalno oo dhiirigelino gacan qabanno cid kasta oo wax ka taraysa ayaa loo baahan yahay bishan barakeysan Ramadaan aynu ku guda jirno oo khayrkeeda ina siiyo gabagabadii munaasibadan madaxweynuhu waxa uu abaalmarintii guddoonsiiyey halyeeyada da'da yar ee xifdiga quraanka kariimka kaalmaha hore ka galay kuna guulaystay sanadkan waxaana kaalinta koobaad galay Mubaarak Khaliif Yuusuf oo ku tartamayay magaca gobolka Maroodijeex waxaana la siiyay gaari nooha lacag iyo agab kale kaalinta labaadna waxa galay Ibrahim Maxamuud Axmed oo ku tartamayay magaca gobolka Sanaag waxaana la guddoonsiiyey $1,300 laptop iyo kutub diiniya kaalinta saddexaadna waxa galay Xanafi Bashiir Maxamed waxaana la guddoonsiiyey $1,000 mobile iyo kutub kaalinta afraadna waxa galay Sikriye Cali Maxamed oo ku tartamayay magaca gobolka Sool waxaana la guddoonsiiyey $700 iyo kutub madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Silaanya ayaa isagana la guddoonsiiyey hadiyad ahayd kitaabka quraanka kariimka Axmed Sakidaar Xasan iyo Cabdilaahi Cali Suudi telefishinka qaranka Soomaaliland qasriga madaxtooyada Soomaaliland ee Hargeysa